madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta sheegay inaanay jiri doonin in wadooyinka goobaha waxbarashada iyo goobaha danta guud in loogu magac daro cid gaar ah waxaanu sheegay in magac bixinta goobahaasi laga yeelan doono kulan qaran gudina uu saari doono arrimahaasi isagoo baaqoga tusaaleyn u diray maayrada dalka waxyaalaha baryaanta baan ugu soo baxay waxa weeye xataa taariikhda qabyaaladeenina nin waro hebel ilaa qaranka wuxuu soo qabtay weynba ama dugsi yar xaafadooda ayaa loo bixiyaa ama mid adeer yahay baa ka qora taariikh markaas la caawina buug hebel wadhiga buug qabyaaladaysan hadda waa ninkii qaranka maxamed axmed calo kale waa ay qaranka waxay qaano wax baray tima cadoo kale yani waxa weeye inaan wixii lala cararin in national loo eego walooyinka dawladda hoose magaalooyinka dhamaantood waxaan farayaa magacaasha wadooyinka iyo meelaha taariikhaha si qaran baa loo bixinaya guddi baa loo saaraya ma kolba meeyarkeena jooga in wadada doona bixiyo magaceedo bixiyo waa la qiimeeyaa dadka loo bixinayo oo si qaran magaalo kasta iyo waddo kasta loo eegaa guddiga insha Allah soo doonaa ugu dambeyntii dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalooyinka dalka ayaa isweydiinaya baaqan hadda uu madaxweynuhu u dirayo mas'uuliyiinta iyo maayrada ee ku aadan magac bixinta goobaha danta guud sideeda ma u fili doonta haddii ay sideeda u fusho maxay isbedel ee la dareemi doona iyo su'aalo kale وخضر إسماعيل محمد خضر نبالي عبد الرحمن قايرو وركب مقبهية عالمك بدعستون فور تيفي هرقيسة